أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. adeega ka waran dhakhtarku siiyo adeega dhakhtarku la siiyo wata la noo adeegayo haye waxna waan ka cabanayna haye waxna waan haysanaa laakiin madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad xaaladdeeda ka warhayso mishiinadan way ugu yar yihiin ha soo badiyo dadku way badan yihiin haye inaad doo soo kordhiso allah idin barakeeyo waa idin ducaynaya mishiino cusubna waa keenayna oo dheeraada adeega ka waran adeega waa naloo adeegaa Haye. wixii duruuf keento mooyaane haye marka aad waxa eega injineerada noogu cidhiidh noogu galay mishiinadana waa soo kordhinayna injineerada cidhiidh noogu galay waa soo kordhinayna Ah. insha allah biidni illah imise sanaad keliyuu ku xanuunaya hadda 3 sannadood baad isticmaalaysaa adeega insha allah mishiinadana waa soo kordhinayna adeegana waa hagaajinayna haddii alla ka dhigo marka inaan cabano inay noqotay Waa si soo gaaray mishiinadana waa keenayna hay adeegana waa la hagaajinaya wad ma santaa haddii alla ka dhigo sala khair inta ka doonno intaas hay dadku waxay ku dhiban yihiin dadkii mishiinadii baa kala waa kala batay ayaa kala badan waa soo kordhinayna jaanis ma kala helayaan insha Allah ilaahay adna ku hay hay adeega ka waran qolka waxaan kuugu mahadnaqayaa madaxweyne maashaa noo timi ul jeer baa subaxii laygu keenaa haye marka dambana waan ka lugeeya maasha allah maasha allah soomaad garan haye meeshan serviska loo qabanaya boqolkiiba boqol wanaagsan alxamdulilah intayna dhakhtarku waan isku filan haye laakiin intii dhakhtarka ka baxsanay ayaan u baahanay Inta- qalab baan u baahanay qalabkiiya waa keenayna qalab baan u baahanoo dushana mid kale naloo saaraa baan u baahanay insha oo allah dadkii waa nagu soo badanaya waaye waa la nagu soo biiraya haye lanagama baxayaba arrinta koowaadaan halkan waxa weeyaan inaan xoogaal u noqdo cabashada shacbiga ee adeeg bixinta caafimaadka waa waajib xukuumadda saaran si gaarana usii saaran cidda markaa adeega bixinaysa oo ugu horeeyo isbetelka guud ee magaalada hargeysa iyo wasaaradda caafimaadku waxaan soo maray qaybta keliyaha labada qaybood ee isbetelka hargeysa dadkii jiifay ee bukaanka ahaa dhammaantood qof baan isu dul taagay waan wareystay warbixintoodii waan dhegeystay cabashadoodii waan dhegeystay cabashadoodi waxay u badnayd qalabka caafimaadka ama mashiinada iyo dadka adeega la siiyo oo kala badan oo mashiinada berigii hore dadka cudurka qabay keliyaha way yaraayeen mashiinaduna way ku fillaayeen marka sidaa daraaddeed waxaa yaraaday ama kuyuu bay gelayaan ama saacadihii la siinayey haddii 4 saacadood la siinayey waxaa la siinayaa 3 saacadood sida ii sheegay taana waxaa keenaya dee mashiinada waxaa kaloo inkasta aanay dadka badankooda hadda ii xusin cabashada kale ay shalay ka cabanayeen waxa ahayd uun adeegyada kale yaryar ee ka baxsan mashiinka horta adeega keliyuhu waa bilaash qarankuna wuxuu ugu talagalay inuu bilaash noqdo waxaan ii sheegeen dhammaantood inuu bilaash yahay laakiin waxyaabaha kale ay iibsanayaan ama dawooyinka ka mid yihiin ama waxyaabaha kale yaryare dee soo raacaya adeega oo laga yaabo dadku maadaama ay dan yar yihiin inaanay iibsan karin ama mararka qaarkood dee bricesku isbedelaya dunida oo ay ku qaali noqdo taa xukuumad ahaan waan uga mahadnaqayaa agaasimaha arrintaas sida uu sheegay agaasimuhu xukuumad ahaana aanu dooneyna waxa weeye in dhammaan adeega keliyuhu uu noqdo bilaash dhakhtarka waanu wada xiriiri doonaa iyo wasaaraddaba laakiin waxaan u sheegayaa muwaadiniinta qaba xanuunka adeegii intii bilaash ahayd ay ka mahadnaqeen runtii ay sheegeen inay noloshooda ku xidhan tahay mashiinkaa yare halkaa yaala
laakiin ay ka warwarsan yihiin mashiinadii oo yaraaday iyo dadkii oo batay iyo adeegii intay helayeen in ka yar inay helaan mashiino badan baa soo socda baahida mashiinada xukuumadda ballan qaadaysa oo adeegaa dabooleysa haddii la yidhaahdo wixii dee maamul xumo iyo adeeg xumo ah loo dul qaadan maayo cidna loogu dul qaadan maayo dadka waa in adeegii loogu talagalay helaan wixii culays ee garowshiilahana dadka waa in lala socodsiiyaa oo si wanaagsan loogu sharxaa arrinta ay ka cawdeen dadka bukaanka ee keliya ka cabanaya arrintaa waa la xalilayaa waxaana mas-uuliyadda qaadaysa xukuumadda iyo madaxweynaha